fadlan ha ilaawin inaad taabato butonka subscribe. laamaha socdaalka iyo jinsiyadaha Puntland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo shir jira si wada jir ah ugu qabtay magaalada Garowe ayaa wax ka jiraan waxa ay ku tilmaameen hadallo maalmihii dambe saddex marayay oo ku aadanaa in markaasi khilaaf uu hareeyay mas'uuliyiinta kaas oo saameyn ku yeeshay helitaanka baasaboorka Soomaaliga ah oo dad fara badan oo Soomaaliyeed gobolada Soomaaliya ay uga soo doonan jireen magaalada Garowe warkan waxa inoo haysa khadra qaran Maxamed Faarax waxa la baahiyay warar la xiriira inay jiraan joojinta baasaboorada laga qaadan jiray Garowe oo ay sabab u tahay xarunta laanta socdaalka iyo jinsiga ee Xamar maamulka hay'adda socdaalka Soomaaliya oo xarunta laanta socdaalka iyo jinsiga Puntland kula hadlayay warfidiyeenada waxay ka warameen sababaha keenay hakadka ku yimid shaqada muddada 3 bari ee qaadashada baasaboorada Soomaaliya agaasimo ku-xigeenka hay'adda socdaalka Soomaaliya Axmed Xuseen Raage waxa uu ka waramayaa qaabka ay wax u dhaceen muddadan hay'addu waxay ku jirtay kuritaan oo dhowr maalmood ah waxayna deganeen horay u deganeed guri kale ah oo ku yeelay magaalada dhexdeeda way jirtaa cabasho naga soo gaartay dadweynaha ku nool goboladan iyo degmooyinka ku hareeraysan laakiin waxaan wargelinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in hay'adda socdaalka jinsiyadda laanteeda Puntland in dib loo ambaqaadayo dib loo furayo berrito ay shaqada ay bilaabanayso waxa qabadana aysan jirin oo dheeraad ah dhanka kale dadka ku hadlay ama saraakiisha ku hadashay magaca hay'adda ma aha kuwa matala kuwa shaqo ku lana ma aha dhamaantood hay'adda dadka shaqada ku leh oo annaga aynu hadlayno waxaan u cadeynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in warka ay gudbeen aysan ahayn war wax jira ah aysan matalin hay'adda socdaalka jinsiyadda gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa dhankiisa shacabka la wadaagay mideynta laamaha socdaalka Soomaaliya 3 bari hay'addu waxay gashay guuritaan waxay deganeed guri kiraa 12 sano gurigi kirada waxay ka soo guudhay 3 bari geediya maanta geedigeeda dhameystirnay Puntland waxay ka mid tahay dawladda federaalka Soomaaliya ka mid tahay hay'adda socdaalka iyo jinsiyaduna waa heer federaal Puntland halkaas ku dhex noosha wax khilaafina kama jiraan waa laga soo guuray geedigaas jiray waa la soo raray wax kale oo shidaaya jiraan ma jiraan website-yada iyo Facebook-yada markaa waa ku arkay iyo dad hadlayo aan war qabeyn oo isleeh dadku 27 sano khilaaf u barteen oo hadii meel la xiro oo la guuraayo waa sharaysanayaan waxay moodayeen khilaaf soo dhaxgalay agaasimaha laanta socdaalka Puntland Maxamed Faarax Qambi ayaa dhankiisa sheegay in hakadka ku yimid shaqada ay qayb ka ahayd ka guurista xaruntii hore ee hay'addu ku shaqayn jirtay isla markaana 13 bisha March 2018 oo ku beegan maalin Talaada si rasmi ah shaqada loo furi doono meel hawadeeda fiican tahay oo shaqadeedana aan jeclanahay inaan si aad nagu xirnaato fadlan ha ilaawin inaad taabato butonka subscribe.